munaasabadan oo lagu qabtay Johannesburg oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika ayaa lagu taageerayay waxqabadka iyo dib u doorashada madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Cumar iyo xukuumaddiisa. Ku taageerayno madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar iyo xukuumaddiisa iyadoo ay meeshan caawa ay isugu nimid dad badan ay doonayaan inay ka hadlaan ama ay munaasib tahay inay ka hadlaan. dadku mar haddii amni la helay nabadgelyo la helay oo maanta aan lagu dhehaynin ma karti jigjiga iyo qabridaar iyo dhagax buur iyo wardheer maxaa ku diidaya inaad wax qabsato oo dadkii inaad siyaasadda iyo qoqobka iyo qaylada iska dayso oo shaqayso oo shaqo ka abuur oo muruqaaga maal. saddexdii sano hore oo hayay xaqiiqatan wax weyn buu qabtay howlo badan oo buldooyin badan buu ka gudbay ilaahayna waa ku guuleeyay. haddana shanta sano ee soo socoto waxaan ka rajaynayaa inuu ilaahay ku guuleeyo uguna ducaynaynaa. waxaan leeyahay Mustafa Soomaalidu waxay tiraahdaa nin la doortay waa nin la doorbiday. shalay wixii meesha ka jiray waad ogtahay maantana Allah ku makiyay oo darajada iyo xilka ku dhiibay waxa lagaaga baahan yahay waxa laga mudan yahay waad ogtahay. qaar ka mid ah dadkii ka hadlay munaasabada ayaa kula dardaarmay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar inuu ka shaqeeyo midnimada bulshada ku dhaqan deegaanka kana hortago kuwa cadawga ku soo hogaaminaya. doorashada dib lagu soo doortay yaanu kugu hambalyeynaa waanu kugu ducaynaynaa inta kadib horay ooga sii soco meesha aad maanta taagan tahay ee dowladda deegaanka Soomaalida waxa weeyaan deegaankeenu yaa nabad ah isaysad dhibaato midna kama jirto. waxay jooxo iyo dowlad deegaanku si xoog la isaga kaajadaan oo joogto ah sidii loo horumarin lahaa deegaanka Soomaalida loona xaqiijin lahaa masiirka ummadda Soomaaliyeed. mudane madaxweyne waan ku soo dhaweynaynaa waan ku soo dhaweyn doonaa garabkaaga nahay waxaan leenahay waagi hore Soomaalida meeshaas walaalaheena ku nooleen dhibaatooyin badan ay soo mareen dib badan ay soo mareen waxaan aad iyo aad ugu farxay mar labaad aad ku soo noqotay doorashadaada markii saddexaad aan kugu hambalyeynaa markii afraad aan kugu hambalyeynaa jiro joog oo magacaaga ha jiro. munaasabadan oo ay soo qaban qaabisay jaaliyadda dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxa qadka telefoonka uga qayb qaatay madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar oo sheegay in maamulkiisa uu soo dhaweynayo cid walba oo horumarka deegaanka ka qayb qaadanaysa. wixii horumar ahaan shacabkeena aan u qabanayno maadaama colaado iyo abaari iyo waxaan ku soo kordhay wadanku ay saameyn doonto noloshooda iyo wixii kale iyaguna soo jijiidaha siyaasadaha gudaheena inta isku maandaafsan qaabka xoo maamulayo maaha inta gumaysi hor le gacanta u taagaysa kuwa ma kuwaas gumaysiga ay soo raacayaan la mid yihiin waana la iska celin banaanka la iska dhigin laakiin inta dhaliilo kala haysa ee rabta dadka in la soo ururiyo intaan waan soo dhaweynaynaa. munaasabadan oo iskugu jirtay taageerada ducada iyo dardaaranka madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Cumar iyo xukuumaddiisa ayaa dhanka kale lagu taageeray guulaha ay dowladda dhexe ee Itoobiya ka gaartay dagaaladii ay la gashay kooxaha mucaaradka ah. Mahad Maxamed Sheekh, Universal TV, Johannesburg, Koonfur Afrika.